qaraxan oo si weyn looga maqlay goobta uu ka dhacay oo ahayd degmada Xamarweyne ayaa ka dhashay bambaano lagu xiray gaari ay wateen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya inta la xaqiijiyay hal xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ayaa ku geeriyooday qaraxa halka xildhibaan kale iyo laba qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen qaraxaasi xildhibaanka geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Isaaq Maxamed Riinow waxaana qaraxa kadib goobta warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha degmada Xamarweyne iyo kaaliyaha gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir waxa ayna faahfaahin ka bixiyeen qasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyagoona sheegay in ay baarayaan sababta dhalisay qaraxa maanta waxa qarax weyn ka dhacay degmada Xamarweyne gaar ahaan sarta loo yaqaan Fiisha Kuweerna ka soo horjeedka bangiga Assalaam Soomaali waxa gaari loogu xiray xildhibaan magaciisa uu yahay Maxamuud Cali Dhuux iyo Isxaaq Maxamed Cali Riino oo watay gaarigaasi ayaa miino looga hoos xiray gaarigiisa laba saac barbarkay ahaydna gaarigu waa u qarxay qaraxa meesha iyo sidoo kale waxa meesha ku dhaawacmay laba shacab ah oo meesha mid wax ku gadayay shidaal iyo mid meesha marayay xildhibaanada midkooda hadda ayaa waxaa noo soo sheegay inuu dhintay xildhibaankaas magaciisa waxaa la yiraahdaa Isxaaq Maxamed Ibraahim Riinow Allah u naxariisto waxaa dhaawac Maxamuud Cali Dhuux asagana oo hadda isbitaalka ku jiro waxaa meesha yimid ciidankii miina baarista ahaa runtii waxay ka sameeyeen baaritaan xoogan ilaa hadda ay ku sugan yihiin baaritaan xoogan ayaa la wadaa ragii qaraxaas geystay waxaan ilaa hadda lagu jira processkii lagu soo qaban lahaa in Allah ina raajicuun xildhibaanka Allah u naxariisto jannada firdawsan Allah ka waraabiyo gacanka gardaran ayaa dishay waa u tacsiirina hadana gobolka Banaadir baabuurka ayaa loogu xiray gaariga mutaqana halka asaga uu ka waday marka xildhibaanka kalena mutaqana Dhuux Allah mutaqana Ilaahay noo caafiyo Ilaahay noo shaafiyo marka labada qof oo shacabka oo dhaawac fudud soo gaaran ayagana mutaqana Ilaahay mutaqana noo shaafiyo ilaahayna noo bogsiyo cadow ayaa jiro waa u jeedaan marka cadowgan waa kulli haraatankii ugu dambeeyay xamar oo ogtii maalmahan in mutaqana howlo badan ka socdeen oo nabad lagu sugayo marka taas baa la diidan yahay ayadana ma soconayso kulli waana howl waa lagu jira darabaadka iyo mutaqana iyo garaacitaanka badan iyo targetka lagu haayo guriyaha lagu dhacayo ay mutaqana ay ka xanuunsanayaan marka meelaha targetka jilcan ay raasanayaan marka ilaahay rabbi raxmaanka ummadana ka qabto annagana dadaalkeeda ayaan ku jirnaa hadaan nahay gobolka Banaadir howlahaas meel fiican ay marayaan waxaan rajaynaynaa inuu soo afjarmi doonto arintaas waqti aad u dhow dadaalkeedana waa lagu jiraa kan dhinta Allah u naxariisto kan suuko qoorta ayaa wax ka gaar mutaqana adiga firir mutaqana amal qoorta halkan xidid mutaqana ayaa go'ay al-shabaab ayaa sheegatay in ay ka dambeysay weerarkaasi qaraxa loo adeegsaday waxaana qaraxan uu imaanayaa xilli maalintii labaad uu galay shir ka socda Muqdisho oo looga hadlayo amniga Soomaaliya kaas oo ay ka qayb galayaan khubaro u xeel dheer arrimaha ammaanka oo ka kala yimid gudaha dalka iyo dibaddiisaba Maxamed Bilagele Somsat TV Muqdisho.